إفتيك أنا برناو أخرسكي أخونت أنو قادناو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan mar kale idinku soo dhaweeyo bartaani Afogi. waxaan rabaa maanta inaan idila soo walaago koorso aad iyo aad u muhiim ah oo qof walba markaasi u baahan yahay haddii aad tahay maamo guriga joogto oo jecel tiknoolajiyada ama inay wax barato, haddii aad tahay qof oo ganacsada ama meherad leh oo jecel in markaas xisaabiyo badan aad samaysid waxaad xisaabsatid, haddii aad tahay arday shareeca dhigto ama wax dhigto adab dhigto ama dhigto computer dhigto ama dhigto chemistry dhigto ama education dhigto ama science dhigto, qof walba markaas wax uu u baahan yahay ama koorso uu u baahan yahay oo isaga dhisi karo ayaan halkaan ku hayaa. waxaan rabaa maanta inaan kula soo waago waxaa waaye koorsada asaaska computerka oo computerka sidoo markaas uu u shaqeeyo ama siduu yahay ama nidaamku yahay ayaan markaas koorskan aan kuugu dhigi doonaa. waa kana marka koorska sidaan u diyaarin waxaa waaye 5 koors waay oo sidii markaas u kala horeeyaan ayaan insha Allah markaas u baranaysaa. haddana waan kuu sharxi doonaa muuqaalkan asigaan rabaa inaan kuugu sharxo. wax marka kuwaad aan kuugu dhigeen halkaan waxaa waaye computer basicska oo computerka aad ku baranaysid mid walba hal mar aan ku tusiyo. computer basic kadibna windows ku xig, kadibna word ku xig, ama kadibna excel, kadibna powerpoint. kulli aan hal mar inaan ku sharxo. computer basic marka aad ka bilaawid computer basic koorsan waxa aad ku dhiganaysaa waxay tahay hadaan hoos markaas aan u socdo computerka wuxuu u yahay waxyaabo markaas uu ka kooban yahay ama sida uu u shaqeeyo, sidoo kale buttonskiisa, boardskiisa kulli waxa markaas ay ka kooban inside computerka. da markaas computerkan kala fureyna RAM-kiisa kulli waxay kala yihiin mid walba wax uu qabanayo iyo keyboardska qaabka uu shaqeynaya iyo operating system waxa uu yahay ayaan kulli markaas ugu sharxeynaa. sidoo kale course waa kana 6 chapter uu ka kooban yahay 35 cashar iyo 5 quiz ah markaas galay sida jirto. hoos down soo aan ku tusiyo ardayda markaas dhigatay iyo markaas commentigooda waa kana sida ka soo qaad Ramadan soo qaaro course aad u fiican wax badan ka faa'iido habka loo soo diyaariyay kuma caajisaysid dhigashada course-kan kulli ardayda markaas nala soo wadaagi feedback-gooda kulli hoos markaas aad ka akhrisan kartaa ilaa ugu dambeeyay mawlid uu dhaa alxamdulillah markii koowaad dhamaan mahad sugnaatay. marka idinka si akhrista commentida ardaydeena ay ka bixiyeen iyo sida markaas ugu faa'iideysteen koorsiyadeena. sidoo kale course-kan computer basic markaa baratid waxa markaas laazim inaad u gudubtid ay tahay ama inaad baratid ay tahay system qaabka uu shaqeeyo. marka systemka ima wuxuu noqon karaa Windows 10 inaad markaas isticmaalaysid ama Windows 11 mid haddaa baratid midka kale waa ku tatbiiqin kartaa. saas ay tahay Windows 10 insha Allah wada diyaarinteeda wadna waana idin soo gudbin doonaa. oo waa kan aad waa ka gudubnay hadda waxaan tegaynaa markaa Windows 10 asina systemka markaas kaga hadlayna folder muxuu yahay, sida folder cusub ku samaysan lahayd, start menu waxyaabo dhan inta ka arki kartaa. chapter walba daasaan u furtid casharadiis kulli ka arki kartaa. kan 8 cashar ka kooban yahay hadan chapterkan daa furtid kulli casharadii iyo wixii dhan sidaas markaas ku arki kartiin. iyadana commentida markaas ardaydan ay ka bixiyaan iyagana hoos daa fiirisid waa akhrisan kartaa waa fiirin kartaa. waxaan aan ku sheegay hadii xayeysiinaya iyo hadii ardayda markaas ay ka faa'iideen habka ugu wanaagsan cashar aadan ku daaleenin oo si toos ah u tagay aan ku sharxay ana diyaariyay course-kan dhan asigoo dhameystiran 5tiisa course ana diyaariyay juhdi badan aan ku bixi hada buwaaga u sameey markaas qaarkood kaga tixi raaci kartid casharkii markaas aan ku dhigay iyo sidoo yahay. sidoo kale kadib markaa Windows operating system ama system qaabka uu shaqeeyo markaa baratid waxa ay tahay hadan inaad baratid waxa waaye dokumentiyada qaabka uu qoray lahayd lacala xafiis fadhiisatid ama hadii aad rabtid qoraal markaas computerka inaad ku qortid laazim course-dan oo Microsoft Word-ka waa u baahan tahay. idan waa kana halkaas aan kuugu dhignay waxay ka kooban tahay 10 chapter 72 iyo 5 quiz. sidoo kale markaa Windows 10 joognana kuma sheegin hal cashar ka kooban tahay 9 chapter waa 39 cashar iyo 2 quiz ka kooban tahay. quiz waxaan ka wadnaa imtixaan ka wadnaa Word-ka oo soo laabana waa kana macna 10 chapter iyo 72 cashar aan ku sameeyay buwaagna waan ku soo geli oo aad degsan kartid oo ka tixi raaci kartid oo PDF aan kuugu soo gudbiyay. waa kana ardayda kale intana fiiri hadda waqtiga koronada ardayda markaan is arag waan ardayda qaarkood ayaan habkan waxaan ku bari jiray oo computerka ay ku barteen qaarkood waa kana 2021 aan ku barnay. marka course mar walba waa update gareena idinkana waa arki kartiin waana ka faa'iideysan kartiin. dhowrkan arday hadda u jeedin oo sidaan u badan ayaa markaas jawaab marka naga soo siiyay oo ku faa'iiday casharada iyo wixii kulli sida ay yihiin. waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidi doontiin. ka soo qaad sidoo kale Microsoft Excel
haddii aad tahay qof baranaya ama xisaabaadka daartid ama meheradaha wax inaad ka xisaabisid ama xisaabaadka inaad isku dardartid iyo kulli asina koorskan kugu barayna waa 9 chapter iyo 53 cashar waaye iyo quiz markaas aad galaysid oo aan kugu imtixaanin wixii aad fahmaysid haddii aad fahmeen sidoo kale assignment aad soo gudbinayso waajibaad ayaa ku jiro waa kana course-kii halkan aan kugu sharaxay sidoo kale ardayda iyo comment ay ka bixin kulli waa kana halkaas ka akhrisan kartaa haddii wax aan ku soo gudbinayn haddii wax saxsan yahay ama haddii kale sida doodii waxay u noqdaan transparent u noqdaan ama wax shafaafiye leh saacdiyo kulli liibaan waa kan Cabdullaahi kulli meeshaan commentiyada markaas ku soo gudbiyeen hay hadaa tahay qof slides macallin ah ama slides sida rabtaa markaas inaad samaysid ama inaad soo gudbisid asin course ku diyaariyay aan ku diyaarinay oo isku dhex qasneen oo nidaamsan oo buugiisna wato oo ka tixraaci kartid waa kana 10 chapter waa 55 cashar iyo 3 quiz waa sana casharkii kulli inta ka arki kartaa sidoo kale commentida ardayda dhigteen ay ka bixiyeen qaybta hoose ka akhrisan kartaa waa kana bedri oo kala dhaay koorsadaan ayaa waxaan ka arkay Facebook waxaan u qorshaystay in casharadeeda ku dhameeyo muddo ku siman 2 isbuuc oo aan fasax lahaa alxamdulillah ilaahay waa iwaafajiyay wax badan oo aanan hore u aqoonin waan bartay sidoo kalena waxaan macalinka iyo barta afoogi ka helay dhiirigelin in wax isbaro oo mar walban aan chapter dhameeyo la igu dhiirigelinayay kan kale in aan u sii gudbo oo aanan caajisin koorsada waa ka ardaygan u jeedin waxa anaga qornimaan waxa si uu qoray waay oo markaas in la soo wadaagay feedbackis iyo falcelintiisa kulli marka insha Allah harjana in course-kan aad ka faa'iido doontiin computer-kana wax badan aad ka bari doontiin asaaskiisa systemkiisa qaabka uu shaqeeyo slide-yada qaabka uu sameeysan lahayd excel aduu yahay word siduu yahay documentiyada qaabka uu qor leeyahay insha Allah aad u maasantiin waan idin kugu soo dhaweynaa afoogi numberska nagala soo xiriir kartidna insha Allah hadda shaashada kaaga soo qormaysay waan arag doontaa aad u maasantiin waxaan u balanaa afoogi noo balan أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو الله معلمكنا كار الله كار آخرياتك الله كار إنك شبه هيليو الله كار قالونا أبنايا أرضيا قنتم واسدي إليس واسدا أرورتيو أكتوا بركي أرضيا قنتم واسدي إليس واسدا أرورتيو أكتوا بركي إرماوي نكله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي إرماوي نكله أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا أدي الله معلمكنا كال الله كال آخرياتك الله كال إنك شبه هيليو الله كال قالونا أبا بنايا